هوي حقيقتي حكمتها إلهيو ورانكيو حديث يدو محايكو حسين هوي هوي حقيقتي حكمتها إلهيو ورانكيو حديث يدو محايكو حسين هوي علوش جوغي maxaan jiifka ka xanibay xaaladaadaan oo nugay maxaan ku xagto dareen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وإفراح دار على ريح الكن مانتا كوحان كهاد لينا برنامج كهوي معان وآد بلارن أو أندونينا إن عندك كوعي جرينو ويان هوي معان وسمينا المقعا ودوري هو يدب كستا كدعاء وحكستا إلا كلامتا وحياه بدنا ويمرتا darteed baan hooyo macaan ugu bixinay marka waxaan ka hadlaynaa xanuunka la yiraahdo maskax guurka Soomaaliga laakiin af Ingiriisigana lagu yiraahdo dementia oo la dadkeenu aqoonin oo imika dadkeenu waaweyn ku soo batay dibadda iyo gudahaba marka waxaan rabnaa in yaro weynsa inaan u sheegno dadka oo niraano yaani sidii qofka loola dhaqmayay ama loo caawinayay loo fahmi lahaa xanuunkan waxaan jecelahay inaan ka hadalno xanuunkan dementia waxa la yiraahdaa dementia baa qofka ku dhacay maahay they live with dementia marka xanuunkan waa xanuun dadka ku dhaca waliba dadka waaweyn inta badan inkastoo aanu lahayn maaragtay age lahayn laakiin waxa weeyaan waa xusuus guur qofku wuxuu iloobaya wuxuu xasuusnaanayaa wixii berigii hore xanuunkaas oo wadankiina imika aad ugu badan oo inay dadku fahansaneen waxaan jecelahay aniga walaashay Nuura oo aan doonayno in iyaduna matasho maaragtay bal dadkaasi patientka sida ay loola tacaalo ama naxariista anagu kulliba waxa la jecel yahay diinta islaamkuna ay sheegtay dhulka gaalada la joognaana dadka waa loo naxariistaa marka inaan lagu caayin qofka xanuunka laakiin la ogaado oo loo naxariisto way dadkeenu markay waaweynaadaan waxa fiican in maaragtay lala socdo oo xanuunkana lala socdo waxaanu ku dhacaa maskaxda waxaana ilowshiyo weeyaan aan xasuusanahay wixii imika dhacay ay xasuusanayaan markay yaraayeen ama wixii ay sameyn jireen bari hore marka walaashay Nuura oo barnaamijka ila matalaysa oo ku matalaysa maaragtay iyadana patientkayga ku matalayso ayaa halkan sheekana dhex maraysa marka si aan dadkeena ugu caawino hooyo lacagteeda maada lacagtii iyo kuriyihii aan lahaa maada kulli way wada yaalaan wax kasta waa sidiisii hooyo aabaha wuxuu rabaa inuu lacagta inantiin garanaysa uu siiyo haye hooyo waxaygi haye anaana iska lahaa waxaan doonayaa inaan anigu gacanteeda ku haysto waxaagii oo dhan gacantaadii ku jira hadii kalena waan bixi wade may habixin hooyo habixin أنا واحد كستكوش العادي وحي ولا أنا كون كيني استيج واحد أو عيالك ويوفي عنك كل ولا وذفي ويجور سدين عروين بلي بريتولي نوي منايا بريما إيمانيا بريتولي منايا سودي ما أنت يقولها ما أنت إيمانيا بريتولي منايا تبي ما أنت ودعين هوي دول كبر جيان لحين يا يجوريه هني محاد يورك هيسا وكل وذفي عيني واحد كستوا وأوكي واحد كستوا سديسي واحد لقاطة إيه واحد عدل السيجة ومجرتها inankeeni marna waxa la igu dhintay haye marunba ma igu nool yahay ma Xuseen baad sheegaysaa Xuseen uu nool yahay iska fiican yahay hooyo aabaha maalinta soo nimanaya buu dhahay maxaa ku dhacay uu jooga imika dhaway toolo inaga baxay xaga dawlad taagay xaga fariis aan ku waram fariis hooyo macaan fariis iska fariis albaabkan ka furaya ma uu wanaagsan yahay uu iska fiican yahay waxa ku sheegay hooyo wax kasta waa okay inantaydii suhuur يا إن أنتي نك برجي سدو كورسدي ما أنا كسوة إيمان يا بيت هذا برسوق الفونكي أنا هذا اللي يمكن مايوه أنا على صاحب لا يمكن على صاحب لا يمكن على صاحب لا يمكن على صاحب لا ويسكفينا واحد كسوة جور من تجنا أنا بريتولة أنا أكوب بلان قاعد بريتولة طبعا كالصباح منه يسوي إنه كل فاميلي قلنا إنه هذا قف كستبو في عينها هذا هو وركنس كده واحد كستوا أوكي عروت هذا بوحي وردنكو هايسا وحدونا ياركو حبا ما يحنين وحبا أوكي بدأ تقول هذا هي
ciyaalka waxa may cuneen way cuneen waxba ciyaalka may cuneen way gaajoonayaan waxba lama siinin ma fahamtay reerka hoos u eeg ma fahamtay inta iska soo fadhiiso hooyo ma yar bax hooyo maadaama xilligan waa madow beritoole 10 subaxnimo soo fadhiiso hooyo waqti ku sheego ma bay kacaynaya ha ana ku kaxaynay beritoole 10 subaxnimo suhuur ana ku geenay maalinta soo iman sabit raada 10 subaxnimo ayaynu ballansan ana ku ballan qaaday hooyo caruurta dhan way fiican yihiin cid kasta way fiican tahay aabo wuu fiican yahay inamadu way fiican yihiin caruurtay aad ayayda u hayd way fiican qof kasta uu fiican dhulkeenu been badii sheegaysa okay markasta waxaas adigu tiraada waxbana kama jiraan may waa okay hooyo waa okay way lama dila qofka waxa way waxa adigu sameysay imka ma fiicna I know sorry xaalin okay inanteeda baa tahay laakiin ciyaalkeeni waxa rabaa inaan sideen wax siin jirnay hore inuu wada cuni jirnay inuu qof kasta yimaado meeshan halkan wax ku wada cuno may way ku wada cunaan ana taa ku ballan qaaday xoolaheena la dhicin ma raba may ma la dhacay guryihii bakaaradii dukaamadii wax kasta way hagaagsan caruurtii wanaagsan beritoole laakiin way wax ballan ku qaaday in kulli family godin wada caawan iska saxan because imika waa goor dambe bas ma jiro gaari ma jiro waxba ma jiraan waa goor dambe laakiin ana hooyo ballanku ugu qaaday caawa iska saxo xoolaheeni guryaheeni dhulkeeni wax kasta ubadkaaga baa gacanta kuugu haya wax alla iibiyo xitaa ma jiro iibkii waan u diidnay xitaa wax la odaygii wuxuu la ciyaalkii rabo inuu kala qiyaamayo waxbuu siinayay dad kale waxaas hooyo ma jiro aniga rumayso waxaas wax jira ma jiro reerkii oo dhan waan soo ribaynaa wixii oo dhan waan haynaa beritoole hay biransiye hooyo anigu waxaan go'aaman gaar hooyo waan warwaraa warwarkana maskaxdeeda inaan kii hebel inaan keeni hooyo wanaagsana way ugu soo noqdaa xoolihii waan qaybinayaa xoolaha lacagtii horta waan qaybinayaa lacagteeda haynin hooyadee meeshay noo taaleen waa inaan ku ciyaar buu leeyahay hooyo waa in laga warhayaa moogti hooyo maalintii dhaweytana waxaad siisay lacagtii wixii oo dhan baad wada bixisay may waxaan rabaa hooyo lacagtana hooyo lacagtani waa lacagtii xoolaheeni ka hadhay in maalintii dhaweytana bangiga aan ka soo qaadnay marka waxaan doonay inaan keeni cali hooyo inaan ka cali inaad ka warhaysno oo nuxsiino berito la suhuur baa imanaysaa tirso maaha saas hooyo igu horta ma hubta in suhuur imaanso suhuur maan sheegi laakiin waxaan ku yiri kulli family intii kala dhan way imanayaan cali ko laba saddex 40,000 cali baan rabaa in loo hayo in cali la siiyo ciyaalkiisa aabaha hooyo dad kale wax la rabaa ya laakiin waxaan kulli aabaha ma u yeedhi kartaa isna imanaya horta hooyo reerkii halkan berigii dhowtay yaa ka dhintay qoladii nagu xigtay busaar hooyadood baa dhimatay iyagana waxaan jeclay inaan wax siino hada doono maaragtay anu ka warhayno hooyo suhuur iyo cali iyo cabdalle ubad ciyaalka beritoole ma wada keeni karta ciyaalkaan dhalay beritoole waa kulligood ku wada keeni ma hubta inay imanaysid imisada subaxa markan saa u quraacan halkan waan baxayaayo waxaan soo iibinayaa kaliyo iyo ma baahni adigu ma baahni aniga ka baxaya ana ku soo iibinaya ana baxaya adigu ma baahni waxa gaadhay xilligaad nasanaysa hooyo oo warigoy waxaan qaban jirin baad leedahay waxaan qaban waa soo qabsatay adigu wax moodsan caruurtii wixii ay ku sugayaan marka waxa soo igu tala waxba qaribtay caruurtaadu way weynaa waxba ma qaribin hooyo waxaan kula caruurtaadu way weynaa caruurta ayayda u ahay ayaa intee laalay marka wax naga baylansani ma jiray hooyo waa diyar weynaatay marka xanuunana way iska jiraan maskaxda dadka iskaga dhaca marka waxa weeyaan wali ma xasuusanid waa diloobaysaa wax kasta aniga ay oranin wax kasta waan xasuusnaa hooyo waan xasuusnaa qof kasta uu wanaagsan qof kasta family uu wanaagsan hooyo intaynan maxaan ku dhahay xoolaha intaan cadowgaanu baabaasan dadkan ayna qaadan intaan noolahay ina ubadkayga iyo aan u kala qaybiyo
waabada hooyo waad u kala qaybiso loo yarkii baan u tagnay lacagtan hooyo saasaad u silcisa xitaa dadka dariiqyadaad lacagta siisaysaa dhulkeenni hooyo waad bixisaa laakiin anigu waxaan ku leeyahay hooyo waxaan doonaynaa inaan ku ilaalino oo wax kasta kula ilaalino wax badan baa hooyo jira marka waxa fiican lacag baad cisho dhigto qolo kala siiso shoobiga ka soo qaaday guriga maxaa iga xirda hooyo kugumaan xidhin hooyo aan ka baxo guriga iyo kan shoobiga doonaya horta yar fadhiiso shaydaanka iskana waxa dhacay hooyo shaydaanka iskana shaydaan waxa uu ka yimi waxa jira imika xanuun baa jira xanuunkaasoo dementia la yidhaahdo ama maskax guurka waxaad iloobaysaa wixii imika dhacay maanta way nala joogeen family waad ilowday lacagtaadii oo dhan dad baad siinaysaa may nala joogin ma iloobine heede ilaahay ka baq hooyo ilowshiyaa jira waa ilowshiyaa jira maanta family ila waxay nagu dambeysay sanadkii 3 sano ma arage may hooyo waad iloobaysaa aniga kuu sheegay hooyo maanta nala joogin hooy 3 sano ma ina arag may hooyo anigu neerasna waa aad dhakhtar u baahan may walaa may waa ku shaqeeya shaqada soo moogid waa ku shaqeeysa hooyo laakiin waxa tirada hal baa ila joogay masuul ciyalkana nala joogay mise caalima nala joogay way nala wada joogeen caruurtii way weynaa wadi balan qaadana ayaan ayad ugu tirin okay waa balan waayeen okay xoolahan kugu dhibayna sidaan kugu siiyo ugu sii okay una diyaarinay wax cunaan birto subax hay intii la heedaho waan garan istaji hooyo anaga ku wada joogno xoolaheeni oo dhan waa dhan yihiin wax kasta way mushkilada waxa jirta wixii imika dhacay ama imika saacad ka hor hooyo wada loobaysa laakiin waxaad xasuusan tahay wixii berigii hore waxaad moodaysaa caruurtii wixii inay kusoo rag way wada waayeen way dadku aniga caruurtaydi weeyaan aniga waxba iga may weynaanin ma fahmin waxaan kula imika qof ku baahan ma jiro dadku waa wada weynaadeen caruurtada iyadoo waxayd way guurguursada waynaga arooskii cashadii tolana tagnay suhuur كل ولا قرصة سهول سهول لما عروري لا هاي والله ما حدا شيء ويل يا قبر بي هايستها انا قلت لك عشدي دويتولي مسهور تايدي انا مسهور تادي ما شاء الله ريركن ما انت وو بوحه علي ما مسؤوليه علي لابو ليه هيسغنا لما ويل بو هايستا marka wax kasto hooyo waa okay anaga waxaan jecelahay inaan ku ilaaliyo uu fiican yahay sabab uu yimaada maanta isaguna britolo inoo imanaya way naga wada warhaya waxaan anaguna waxaan rabnaa hooyo si fiican ku ilaalino xanuunka ilaahay baa keenay xanuunka la isku macaayo dadkeena waxa fiican in xanuunba minay maya waxa jira xanuun baa hooyo jira xanuunka waa inaan ilaahay ugu xamdi naqno xanuun dementia la ama xasuus guurka ayaa jira wax kale oo ma jirto waan ku ilaalinaynaa wixii imika joogay ayaa dilaabisa waxaad xasuusantahay wixii barigar waxaad masalan wax beelahsan anaga ku nool wax kasta hooyo anaga ilaalinayna anaga ku nool caruurtii ku ilaalina wax kasta ku ilaalina ku xinaynayna ku hagaajinayna markaa hooyo hawari hooyo wax kasta ana qabsan cishada tolo hooyo waxaad siisay ninayna waxba isku hayno xitaa xaafadeena reeraheena toon ahayn ayaa dhul siisay oo tiriga jaarkeena xaq ma noo jaarka may hooyo jaarkeena ma hooyo anagu caruurtaadi baan nahay wax kastaan ku ilaalinay istaji hooyo hooyo ya hooyo bari toolana family oo dhan baa isku imanaya waa inaan waxaana ilaahay keenana ay loobina u sameeyay quraan wuxuu ilaahay keenana hooyo maxaynu inagu islaam baynu nahay alxamdulillah wardigaaga iska alxamdulillah waxbaan soo bartay bay leedahay ya adiguna waxaan soo saabay u tir xanuunkan ay sheegayso laga sheegayo ninkii dhakhtarka caday ii geysina ninkii dhakhtarka ana waxa uu igu yiri waxba ku haya anigu waxaan ma qabo gabadhan yar aan dhalay iyada wax waxbay maagan tahay tolo ma run bi sheegaysa ya horta maalin kasta waxaad ku tiraahdaa ma run baad sheegaysaa hooyo waxaan maalin kasta ka hadsan muxuu yahay waxaan ku xoolaheeni baan rabaa inaan wada kala qaybsano inaan gurigeena sidii hore ku soo noqdaan rabaa adna maalin kasta xanuun iyo waxbaad ka sheekeynaysaa okay ilaahay maad ka baqahayn waan ka baqaya ninka cadaanka ii geeni sidee leedahay maxaan ku maalin kasta kiniinka yar soo siinayana ما waxba hooyay ma caawin hooyay bal ku hubso wax iska hubso aniga hubso hooyo wax kasta ana ku hubso hayo ana halkan ana ku nool wax kasta ana ku joogo hooyo waxba noqon mayso inta anagu nool lahay gaalada lama aaminay inta anagu nool lahay waxba kugu dhici maayeen hooyo dadka baxna ka war hooyo may habixin hooyo habixin ay fadhiiso ay fadwaan ku jecel adduunkan kugu jecel hooyo adduunkan kugu jecel ilaaha ku dhowr ilaaha ku caafiyo hooyo waan ka war hayna waan ku jecel lahay shaydaanka iska naar ubadkaaga waan nahay waxaagii oo dhan baan ku haynaa ubadkaagu fiican yahay aabbu fiican yahay ee inta yar kaliya jirta waa iska waa khayrka
ayaa badan. Maanta halkan waxaan programka hooyo macaan oo si hoos yaala dementia gaaladu waxay yiraahdeen you are dementia lama yiraahdo waxa la yiraahdaa you live with dementia waxa la nooshay xanuunka maskax guurka ah. xanuunkani waxa weeye waa xanuun maskaxda ku dhaca oo ilowshiyo keena oo qofku xasuusanahay wixii imika dhacay saacad ka hor iyo 2 saacadood ka hor. inta badan dadka waaweyn buu ku dhacaa laakiin waxay xasuustaan markii ay caruurta haysteen markii reerkii hawshii sugayay. dumarku inta badan galabtii bay warwaraan 5 galabnimo markay tahay 3 galabnimo ay tahay waxayna ka warwaraan inay caruurtii u maydhaan u hagaajiyaan odayga cuntada u kariyaan wax saasay ku mashquulaan. raggana inta badan markuu ku dhaco aroortii inay shaqo tagaan ama ay ragga u tagaan ama sidii nolol maalmeedkii ayay noqotaa. marka xanuunka dementia dadka aad buu ugu badan yahay qurbahanan joogno imikana waxa ay ugu maqaalaa oo aad ugu batay wadankeeni. marka dadka halkan jooga waa dadka ugu badan ee la ilaaliyo ee ma aragtay lacag badan lagu isticmaalo. marka waxaan jeclaan lahayn inaan wadankeeni waxaan u sameeynaa wadankeeniina u sheegno ma aragtay xanuunkan inuu jiro. marka qofku markuu xanuunsanayo waa in lala socdaa. waxa dhici karta in gurigoodii ay tiraahdo hooyo waa lay cadaabaya jannadii baa ma aragtay ku jirtay intaan lay cadaabin aan ma aragtay xoolahaygan bixiyo aan waxaan kala sameeyo qofkiina wixii loo albaabka iska baxo uu iska tago. laakiin waxa loo baahan yahay qofka dadka inta ehelka ah ee ku aroundka ah inay u dejiso waxa xanuunka waa la dejiyaa. qofka waad u dejinaysaa waxa weeyaan wax kasta oo uu sheego waxa loo baahan yahay naxariis iyo kalgacal iyo waxa uu ku sheegayo inaanad marna wax laga yaabaa 5 caruura inay kala jeclaato mid aydo mid hagaajiso mid xoolo siiso waxaas ma jiro. marka family waxa loo baahan intay wada shiraan oo iska wada sheekaystaan waxaan ay reerkii controlaan hooyada ama aabaha ama qofku ku dhacayna si naxariis ah loogu sheego waxaan oo dhani waa okay waxaan oo dhani waa jira iyada sidii loo dejin lahaa. marka kullayna dadkeenu waxay yaqaanaan in xanuunka la isku aayo ila qofkaasi waa waalay haduu mental yahay hadii ilaahay isha ka qaadeen cawro la yiraahdo faruuro sangaabo ama gaabano ama xanuun kaas ah kansar baa kugu dhacay qofkaasi dhiikar buu leeyahay in waxa fiican inagana afkeena aan wanaajino. qof kastaba ilaahay wuxuu u qoray ayaa ku dhacaya laakiin xanuunka dementia-ku waa xanuun aad u halis ah oo dadka maskaxda kaga dhaca kaasoo aan ma aragtay u baahan yahay qofka in safety-giisa iyo security-giisa la ilaaliyo. dementia macnihiisu waxa weeyaan waa qof aan xasuusanahayn meel alla meesha uu joogo. maskax guur waa maskaxdii ama oo qofkii uu maskax guur ku dhacay oo xasuusanahayn waa xasuustii qofkii ka tagtay laakiin sometimes wuxuu xasuusanay intooda badan wuxuu xasuustaa wixii bari hore dhacay markii la guursaday xoolihii uu lahaa inuu wax u haystaa mararka qaarkood inuu strong yahay inuu shaqo tagi karaayo. marka waxa weeyaan ilowshiyo weeyaan cara badan baa dhici karta uu ku dili karaa wuu xanaaqi karaa. dadka inta wuxuu ku dhacaa dadka waaweyn buu ku dhacaa inta badan laakiin qof yarna uu ku dhici karaa waxani waa depression soo bilaabmaya laakiin inta badan wuxuu ku dhacaa waa dadka waaweyn. marka dadka waaweyn waxa dhici karta inay waxyaabo badan ama iska bixi karaan ama waxaanad filayn. dadkeenna waxay sameeyaan oo anigu arkay xitaa wadankii maran tagay in lala murmaayo qofka muran la sameeyo waxa laga yaabaa wiil iyo gabadh ay hooyadu dhashay inay mid jeclaato oo ay iskaba jeclaatoba waxba laga yaabaa inuu qof idin soo galo cadawgiina ahaado dadku cadawga ay sheegan qof kale oo ay familiga ku kala dhahayn inuu qofkii iskaba jeclaatay sirtii oo dhan u sheegto because waalidkani ma garanaya xusuustii baa go'day waxa laga yaabaa inuu adiga ku caawiyo yiraahdo inantaydu waa sidan ama waa sidan ama waa sidan ama inankaygu waa sidan waa tuug waxaan uga qaaday waxaan igu sameeyay adiguna aad xanaaqdo. marka waa ina mar kastaba you have to be aware inuu qofkan xijiyihii go'ay ama de maskaxdii xusuustiiba ay ka tagtay ka guurtay. marka sidii aad u garanad qofkani mid labaad waxa kale aan ilaabay oo aan jecelahay anagu markaan shaqaynayno ama de dhulka la joogo qofka kuma sheegno inuu yahay ma aragtay imika uma xisaabino waxaan u xisaabinaa ku respect ku siina markuu yaanga ahaa markuu guursaday markuu quruxda badnaa ee uu ma aragtay uu yaraa ayaan ku ixtiraamnaa. imika ma niraano islaantan gabowday ee waxba kala garanay damashuur ku dhacay laakiin waxaan ku ixtiraamnaa inay hooyo ahayd inay oday lahayd inay reer lahayd inay caruur lahayd inay ma aragtay qof wax maamulaysa tahay inuu baylood ahaa inuu nin shaqaysto u ahaan jiray. halkaasaan anaga maskaxdeeda gelinaa marka kolkaan u soo galayno we give respect and dignity googan ilaa waa sharaftiisa iyo baa la ilaaliyaa waa Soomaali noqonaysa baan u maleynaa sharaftiisa in la ilaaliyo laakiin kullaba kuma xisaabina imika qof baa Allah ya ciise xaarkiisa moodayba inuu wax wanaagsan haduu doono iswada marmarinaya qof baa haduu doono guriga ka carray laakiin kol kastaba
kuma niraahno macayno waxaan niraahna qofkani dementia ayuu la nool yahay oo xanuunkaasa ku dhacay laakiin waxaan u respect garaynaa markuu yaanga aha markuu quruxda badnaa markuu reerka maamulayay ayaad u ixtiraamaysaa marka programkani wuxuu daaran yahay inaan dadkeena u naxariisano qof kastoo walo xanuunsanaya xanuunka dementiakuna wuu inagu bato wadankiina imika uu ku batay inaad be aware ahaataan hadday hooyadaa ku caydo ama ayeydaa ku caydo ama wax kugu tiraado ama inankeeda tira iyadoo dad kale idinla fadhiyaan waxba ha khajilin qofka waa nasiib wax ku dhacay waa in la ixtiraamo oo ma aragtay dee sidaas lagu ilaaliyo waxa ilowshiyaha faraha badan leh waxa laga yaabaa inuu qofku iska baxaba tolo maxay haysaa ya na cali baan u tagay cali gabadhan waa gabadh yar waa la saay cali baan u tagay cali baan u tagay maanta waa tan abeer kinaas ka laka robada robada iyo horta guriga soo gal hooy shaytaanka iska naac hooy xaqii ku socod a'uudu billahi min shaytaan oo gurigii soo garan waayo uu ku yiraahdo waan baxaya dabadeetana markuu iska tago uu qofkii baxo uu lumaba waxba dhici kartaba inay matalan oo kale dabka shaaha ay shido oo shaaha isleedahay karso laakiin ay bahashiba baqtiin weydo waxa laga yaabaa inaad ilmo yar u dhiibtay oo tira ilmaha hay inay iskaba baxdaba marka adiguna markaad u soo gasho inaad ku qaylida maaha wixii waa inaad search garayso tiraahdo qofkan maxaa ka si noqday waxa laga yaabaa qofkii inuuba gurigii ku soo noqonba waayo waxaba laga yaabaa inuu kula dagaalamaba oo wax kugu qabsado kugu dhaad xoolahaygii baad xaday xoolahaygii baad cuntay waxaan sax ahayn marka waa inaad fadhiisato oo isweydiiso waxani wuxuu yahay maaha quraan saar maaha wax kale quraanku waa wax fiican in la isa saaro laakiin waa xanuun u baahan dawo la siiyo oo dhakhtarka lala xiriirsiiyo markaas oo dhakhtarkii aad ama tu ma aragtay de maskaxdiisa dejinaysa ama jirkiisa dejinaysa laakiin waad arkaysaa qofkii sidii hore maaha waxa laga yaabaa imika waxaan xasuustaa wax dhacay beri dhaweytoole inan yaroo ay loo dhiibay ayeeya u ahayd gurigiiba way ka baxdo way ka tagtayba ilmihii yaraa guriga jiifa islaantiina waa la waayay markii la soo helo maaha in la canaanto maxaa waxaan kugu kalfo qofkii wuxuu noqonayaa wuu warwarayaa waxaan sax ahayn buu sheegayaa hadalkiisii wuu qasan yahay marka waxaad isweydiinaysaa maxaa ka laakiin maaha markaasi inaad ku qaylido waxa weeyaan inaad tiraahdo maxaasi la fadhiisato hadduu ku dilo hadduu ku caayo muhiimka u weynayaan dadkana kala talinaya waxa weeyaan adigoo dad la jooga aanad yar jeclan amaad ka xishoonayso amaad sharfayso haddii hooyada ama ayeyda hadal sir idinka idiinahaa ay sheegto inaad waxba ka soo qaadin hadday adiga ku nacdo kolba qofka yar jeceshay gelinka hore waxa laga yaabaa inay inanka jeclaato gelinka dambe waxa laga yaabaa inantay sodoxda u tahay inay caydaba ama inankay sodoxda u tahay for example oo tiraahdo tuug baa tahay xoolahaygii baad dhacday waxaanaad samaysay waxaan kalaad samaysay oo hooyadaa way cayday oo idinkiina carootaan marka waxyaabahaasi familiga waa in laga ilaaliyo especially sodoxda iyo maaragtay sodoga iyo waxyaabaha inagu aynu ilaalino aynu is ixtiraamno waxa ka fiican in la yiraahdo maxaasiya ها واللي أو حرحران إلا حرحران إن وحنا لقول هذا قف كيس ضمن أما قف كي بقى يدي أما أوجي جوري لقول حرلا يرادو وعليه وواشة ترى قف كي وصي وعلني أنا جا أنت بدن هالكن دول كان دي دوا شرته وانا شيكا دير ويا لكن وحويان وسيف جاردن باتشرة وحيابا بدن باتشرة marka laakiinse waxa way dhici kartaa in qofkii la xirxiro in qofkii la dilo in la yiraahdo loo hanjabo taas aa dhacday inta badan qofkan way waaranta waxaasay nagu tiri waxa kale tiri marka waa sheeko badan laakiin anaga imika halkan aniga walaashay waxaan caawa halkan u nimid in qofkii ogaataan especially dadka waaweyn in loo naxariisto qofka maskaxdiisii wax noqotayna inaan la siicaa in dhagax lagu dhufanin la erin waad waalantahay la oran dad badan waxa jira ay xanuun yar oo depression hayo laakiin markay dadku caayaan ay wixii ku yiraahdaan inuu sii waasho okay magacaygu waa Nuura Ciise Omar run ahaantii halkan caawa waxaan u nimid aniga walaashay Farax Cadare maadaama aanu nahay dad u shaqeeya health care-ka noocyo badan baawinta dadka sida doontaba ha u dhacday xanuunadan waa xanuun maaragtay aan ma caawa aan ku soo qaadanay barnaamijkayga hooyo macaan oo runtii aan rabnay inaanu sida ay Farax sheegtay baanu u sheegno dadka qofkaagii oo xanuunsanaya aanad ogeyn wuxuu ku dhacay inaad ku oran
waalanay u waashay inaad ka waalin adiguna laakiin aad soo fadhiisid oo tiraadid maxaa kugu dhacay hooyo maxaa kugu dhacay walaal maxaa kugu dhacay aabo seen wax ugu qabana familyguna inuu iska warhayo oo qofka markuu xanuunsado meeting laga yeeshana aad bay muhiim u tahay dhakhtarada in lala xidhaana aad bay muhiim ay u tahay marka barnaamijkan runtii Yurubta aad buu ugu badan yahay xanuunkani iyagu waxay u furteen home care u furteen waxay u furteen meel dadka kaga wada warhayaan u furteen qof walba waxay ku tixgeliyaan sidoo yahay bay ku tixgeliyaan haduu albaabka ka soo xidho kula hay soo gelin waqtiga waxay dadwada marka la siiyo qofku uu reed iska degsan uu degay laakiin waxa jira marar badan ay kacsan yihiin oo laga yaabo waxay doonaan inay kugu soo tuuraan oo maaragtay dagaal ay ku jiraan laakiin wada wax laga soo baaraan degay oo waa ka ay ka war haystaan ay u sameysteen maxaan ku rahaa ama dhakhtarada haato ama meelaad kale ku hayo waxaan quraankan u shidayaa quraanku aad buu muhiim u yahay markasta inaad u shidama laakiin markii yarda ay maaragtay dagaaladan wax kale u sameeyay inagu quraan baynu gelinaynaa laakiin markuu qofku sidan oo kale yahay uu quraanka iska dhageysto adiguna aad la yar fadhiisato marka quraanku waa very important وبعدين وثقها واركي ودايا وثقنا علي ما تشوف علي كندا ودقيها مثل علي بان تغي علي علي كندا ودقيها علي علي بان تغي علي ما قوي اسكت كلمه بابو علي علي شيطان كسكن نار اعوذ بالله من الشيطان علي بان تغي علي كندا ودقيها كندا واهلكي واركي فريسو الشيطان قال انا وانا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو علي كندا واهلكي إنا لله وإنا إليه راجعون هوي علي ما تدري ومقي علي وسوقي وانكو أركي روب بعدين وانكويها إنا لله وإنا إليه راجعون شيطان كيسكن نار وانكو حد برا هاي علي ما تشوق هالكن هو شيطان كيسكن نار وانكو كنا دقيقة ديارات بالله راعية ها اوكي meel fog weyn برين تيجها اي walaalo waxaan halkan u taaganahay oo idin faraynaa dadka xanuunsanaya dhamaan qof kasta oo xanuunsanaya horta inaan ixtiraam siino imika dadka marka la yiraahdo cancer baa ku dhacay cancer ma sheegno waxaan si weird baa ku dhacay xanuunkana ilaahay baa keena xanuunka dementia dadka imika uu ku badan yahay waana waxa ilowshiyaha aan qofkii garanayn marka waxa fiican dadku inay dadkooda u naxariistaan ama dawooyin baan anagu ku manage garaynaa iyo naxariis badan مثلا imika haday hooyada ama aabaha uu xanuunsanayo inuu qof kaliya hayo maaha waayo qofkiina wuu la dhibaatoonay inay dhowr qof isku bedelaan familyguna shiraan dadna qofkii la garto in control loo sameeyo la garto hooyadani waxay ku fikiraysaa markii ay yarayd ama markii ay awood lahayd sidii maskaxdeedu taaganta wixii imika ku dhacay ma garanayso laakiin wixii berigii hore xasuusantay marka qof kasta oo wala xanuunsanaya dhulkan gaaladaynu joogna subhanallah waxa weeyaan maalin kasta waxaanu ka shaqeynaa dignity and respect inaanu dadka u naxariisano inaguna dad islaam baynu nahay in dadka cayaha xulxul laga daayo qofka ilaahay wuxuu keenay abuurta ilaahay ama xanuun ha noqotee oo dadka naxariisan u keeno quraanku wuu fiican yahay la dhageysto dawooyinku way wanaagsan yihiin la qaato in dadka loo naxariisto naxariista ayaa wax kasta oo aad hadalkiisii aanad ka qaadanin waxa uu sheegayo aanad ficil ka qaadanin oo aad tiraahdo qofkani waxaan xasuusanaya waa hooyaday ama waa walaalkay ama waa adeerkay sidoo berigii hore ninka ragga uu ahaa ama gabadha ay u ahayd dumarka khatarta ayay imika tahay laakiin imika waxa haysta waan ku respect garayna marka dementia haduu yahay waa xanuun aad u fara badan ilaahay haynaga hayo laakiin waxaanu dadka halkan u taagnaaniyo walaashay aadna waad u mahadsan tahay sida fiican in isku metelay labada iyadoo waanu ka shaqeynaa healthiga area waanu joognaa marka waxaan maalin kasta waan la dhiil garaynaa marka waxaan aad ugu mahadnaqayaa walaashay Nuura oo ma aragtay barnaamijka si fiican aan u wada wadnay ku soo dhawo walaalo Nuura alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan caawadan wadnay barnaamijka aan diyaarinay ee ahaa ku saabsanaa caafimaadka iyo inta naga aragteenba waxa weeye in yar baan ka soo qaadanay maaha wax badan kama aan sheekayn